بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هانتين بميل بالعالم كجوكتان مركلة إيو أنا جيو إنكو صور لعبتو يعني رنا هانتي وكحمة هاي تي في جو حاجة صور ده شيء بدينا مركا بدينا مركا وحنجي على سينا كسوع اللي مركلة نقول هم با ومد الصومالية كنا العالم كميل كستو أجوجان waxaan ugu hambalyeeynaa maalinta qaaliga ee aadka u qiimaha badan ee nuguda qaaliga ah ee kooda looliyo sanad guuradii markaasi ka soo wareegtay sanadii 1960 runaantii waa maalin nagu qaali ah waa maalin wadankeenu uu helay xorriyad markaasi rasmi ah runaantii waa maalin taariikhi ah dhamaantiina waan idin hambalyeeynaa waxaan u hambalyeynayaa marka ugu horeysa my Facebook family waa dadka markaasi aan asxaabta ka nahay ama ku jira asxaabteyda Facebooka oo aan markaasi u dirayo hambalyo aad u qaali ah ee maalinta qiimaha leh ee Soomaaliyeed ee kooda looliyo runtii wadan kasta oo adduunka ka jira wuxuu leeyahay maalin aad ugu qaali ah maalintaasi waxay ka dhaxaysaa dadka oo dhan runaantii waa maalin markaasi ay soo xasuustaan wixii ay soo mareen lana xuso heerkii laga soo gudbay iyo wadanka maaragtay sida uu xor uga noqday dhibaatooyinkii soo maray iyo gumeysigii iyo waxyaabihii markaasi caqabadaha ku ahaa ee markaasi dadnimadooda weeqayay sanad guurada markaasi 60kii aynu qaadanay inkastoo toddobaadkii hadda aynu soo dhaafnay oo dhan ay noo ahayd maalmihii xorriyadda oo laga soo bilaabo maaragtay 26kii June oo ay gobolada markaasi waqooyi ay xornimada qaateen maanta waa labo kooda luuliyo waa maalintii haddana ay ku midoobeen xornimada gobolada waqooyi galbeed iyo koonfurta Soomaaliya marka waa maalin dadka Soomaaliyeed ku weyn dadka markaasi qiimaha leh ee garanaya xornimo waxay tahay iyo xorriyadii waxay tahay sidaa darteed maanta waxaan jeclaystay asxaabteyda inaan la wadaago in markaasi hambalyadaasi ay tahay mid wada qaali ah waajibaadna naga wada saaran yahay maalintaasi aadka u qiimaha badan dhammaantiin waan idin hambalyeynayaa inta daawanaysa iyo inta daawan doonta waxa kale oo hambalyeynayaa dhammaan asxaabteyda qaraabadeyda ehelada iyo waliba family-gayga Facebooka sidoo kale meel kastoo caalamka ka joogto haday habeen ku tahay haday maalin ku tahay intaba waxaan ku leeyahay hambalyo maalinta nagu qaaliga ee kooda looliyo mar kale waxaan jecelahay inaan idinku dhiirigeliyo dhanka dhalinyarada kale run ahaantii haddii aadan adigu arkin saameynta ay leedahay maalinta xornimada qaaliga ee Soomaaliyeed waxaa soo maray aabaha waxaa soo maray awowga waxaad u baahan tahay maalintaasi inaad xusid laanahu jiritaankaagu ma shaqeeyeen xornimona ma aadan haysateen haddii aanu aabaha ama awowga soo shaqeynin sidaa daraadeed waxay dadku mudan yihiin inay maalintaasi isku hambalyeeyaan meel kastoo ay caalamka ka joogaan inta badan dadyowga qaar waxay sameynayaan xaflado maantoo kale qaarkood telefoonada ay isku wacayaan oo ay isugu hambalyeynayaan maalintaasi qiimaha badan qaarkoodna sidoo kale Facebooka ayay qoraale isku soo dhigaan ama calankii iyo qiimihiisa ayay muujiyaan waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan dhammaantiina dadka markaasi i daawanaya waxaan idin leeyahay hambalyo kooda looliyo Siciid waa sidoo kale ku hambalyeynaya mire sidoo kale adna ku hambalyeynaya Kamaal Cabdullaahi Maalim Maxamed Cali dhammaantiin baa runtii guud ahaan sidaad maaragtay u dhantihiin hambalyo ayaan halkan idinkaga soo dirayaa marka maalintani runtii waa maalin xusid mudan waa maalin aad u baahan inaad markaa xasuusatid oo aad tiraahdid aniga haddii aanan maaragtay maalinta xornimo qaadan lahayn ma shaqeyn lahayn Soomaalinimadeeda maanta caalamka ka shaqeynaysa inaan Soomaali ahay identity-gayga ayaa markaasi dhibaato geli lahaa wadanka maaragtay qallaasa geli lahaa
macnaha dhibaatooyin badan ayay maaragtay maalintan lasoo afjaray oo gumeysi culaysna dul saarnaa ayaa laynaga dulqaaday. marka dhammaantiin waan idin hambalyeynayaa. Cabdifitaax Qoryooley oo kale, Aanehe Qoordheer oo kale, iyo dhammaan asxaabta i daawanaysa, Cabdicasiis, dhammaantiin hambalyo. waxaana si gaara maanta usoo qaatay inaan si live usoo galo idinkugu hambalyeeyo. waxa weeyaan maadaama aynu nahay Facebook family oo aynu asxaab nahay, waxaan mudan nahay inaynu markaasi wadaagno hambalyada maalinta kooda luuliyo oo iyadu markaasi ah maalin aad noogu qiimo badan, isla markaana aan ka xorownay gumeysigii dhibaatada badnaa ee markaasi waddanka haystay sanadii 1960. dhammaantiinba runtii aad baan idinku hambalyeynayaa. hadday habeen idin tahay hambalyo, hadday maalin idin tahay hambalyo. idinkana fahantiina ha ka caajisina inaad iskugu hambalyeysaan muuqaalada iyo markaasi qoraalada oo loo baahan yahay in aad markaasi waa shayga kaliya ee naga dhexeeya midnimadu. midnimana waa wax runtii aad u qaali ah. Soomaalida meel kastoo ay caalamka ka joogaan waxay u baahan yihiin runtii inay maalmaha qaaska u ah ee aabayaashood runtii dhiigood maaragtay dhaqaajiyey inay markaasi isugu hambalyeeyaan. runtii xaflada ayaa ka socdo magaalooyin badan oo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho, waxaa ka mid ah caasimadda Oslo aniga aan joogo xitaa badanaa waan qabsanaa maalintan oo kale, waan xusnaa. dadka qaarkii uma suuro gashay inay xafladahaasi ka qayb qaataan, laakiin inta adiga aad awoodo ee aad ka qayb qaadan kartid jiritaanka dadnimadaada iyo wixii markaasi kaabay, runtii waa waajibaad ina wada saaran. siiba dhalinyaradu maaragtay energy badan ayay u hayaan inay ku bixiyaan dadaalada noocaas oo kale ee xornimada maaragtay muujinaya. runtii aad bay u wanaagsan tahay. sidoo kale runtii ma koobi karo dadka halkan ku jira oo qoraalku kor ayuu u socdaa, laakiin si guud ayaan waxaan idin leeyahay dhammaantiinba maalintan waa maalin nagu qaasa, waa maalin noo gaar ah, waa maalin u baahan in aynu ka hadallo oo aynu maaragtay wadajir weliba u muujino jiritaankeena, iyo weliba maaragtay aynu xasuusano dadkii naga horeeyay. qof walba uu dareemi karaa horta xornimo daro waxa ay tahay runtii, iyo culeyskay leedahay, iyo saameynta bulshada aad ku dhex nooshahay ee markaa aad ka dhalatay ay ku leedahay. runtii qof walbaaba uu dareemi karaa. sidaa daraadeed ayay maaragtay maalintani u tahay mid aynu aad iyo aad u xusno oo aynu dareemi karno oo inagu ah qaali, wadnayaasheenana markaasi mar walbana aan ka marnayn. anigana markaa waxaan jecelahay inaan halkaa kusoo gabagabeeyo, aan idin idhaahdo meel kastoo aad joogtaan hambalyo hambalyo hambalyo, especially maaragtay Soomaalida meel walba adduunka uga nooshahay, 5 qaaradood ee adduunka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتينا waan idin wada salaamaya. waad ku mahadsantihiin like-ka, share-ka iyo weliba subscribe-ka aad sameysaan, iyo weliba sida barnaamijyadeena hore noogala qayb qaadan jirteen oo aad markaasi mar walba heeganka ugu ahaydeen. taasi ayaana sababtay inaanu ku dhiirano mar walbaba inaanu maaragtay idinla garab taagnaano xiriirka joogtada oo laga yaabay mararka qaar bini aadan aan nahay inaanu howlo kale ku mashquulo, laakiin waxyaabaha xusida mudan in markaasi aynu wada qaybsano. meel kastoo aad caalamka joogtaan waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaantiinba waa mahadsantihiin.